بسم الله الرحمن الرحيم. خضر محمد عسكر وإذن صوت سلام يا قلب ونكسل وحنا نتكون سلام يا سلامة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxyaalaha qaarkood lala yaabayo waxa ka mid ah oo maanta live kan aan soo galay nin aan sidoo waalayahay oo la yiraahdo Xasan Cawaale oo shir jiraayado qoyan ku durayay Professor Buuba ayaan dhaweyto iyo muxuu ahaayay iyo Kaysar oo wasiir Kaysar shalayna waxaan arkay ninkii waalna oo isagana madaxweyne ku xigeenka wuxuu haayay dhaliilaya Soomaaliland waxaan leeyahay Xasan Cawaale waa nin fiican sababtoo ah koobkii doqonnimada uu la cararay uu qaaday ayuu dadka u cadeeyay in uu yahay نعس في Somaliland dadka doorana waa dad noocaas ah dadka dhowr iyo 10 sano fadhiya wuxuu haayay baarlamaanka iyo golaha deegaanka Soomaalidu waxa ku mahmaahdaa ninka ariga laga qoosay maqasha laga qoostay ay Soomaalidu geela u dirtaa dadka doorana waa ka soo miran Xasan Cawaale asoo aan fiican u saacadeeyay doqonnimadiisana uu cadeeyay laakiin qaar badan ayaa nacaslimadooda aan wali soo bandhigin aan ka firi doonana ayaamaha soo socda iyaguna inay hadlaan dad badan oo kamida golaha deegaanka ama baarlamaanka Somaliland ayaa u baahan in maskaxdooda la hubiyo shalayna isagoo kala guraya ayaa arkay muxuu haayay Samarontii oo Maxamed Cassa iyo wax dhex galay laakiin se Xasan Cawaale inta uu tabixi ku yiri ayaa raantii ku filan baa filaya sababtoo ah shir jaraayado qoyan buu kolba sameynaya oo wax lagu qoslaa waxaan idinkaga tegayaa dhammaan ummadda Somaliland bal kuwa dambe anigu mid dambe codayn maaye oo rag aan ogahay oo imka hadan bartan ka hadla cawaadi doona ayaan ogahay anigu inta ina gumeediyeen rag tan isku soo gaadhay oo gaadhba gaadh bedelay goor dambe timim Soomaalidu tiraahdo نعس دقل أنا لك افتمي تشرين أو هذانا إمك كدو بيايا محو هاي حفيسي دقات كود أيا ذاكيسا marka waxaan leeyahay bal doorasho un baad doonaysaan hadii jaraalo doorasho un baad ku hadashaan wal Xasan Cawaale kale iska ilaaliyeen maadirayaal billaah عليك kaas bar heer baas inoo keenay heer baad doortay magaca Somaliland ku jooga waxaan idinku dhaafayaa waa Khadar Maxamed Askar bye bye.